daawadayaal wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda magaalada Laascaanood oo saacadba saacada ka dambeysay si qaraadhanaya dagaal xoogan ayaa saacadii markaasi afraad ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. ciidamada deegaanku waxay sheeganayaan guulo waaweyn waxaan idiin haynaa muuqaal xasaasiya iyo sidoo kale baabuur la qabsanayo. waxaa jira suuq weyn oo caan ka ah magaalada Laascaanood oo haystay ciidanka in cambaashe in ay la wareegeen dadka deegaanku ayna xoog ku furteen. waxaa la sheegay in taliyay ciidanka guutada toddobaad dhaawac culus laga soo gaarsiiyay dagaalada ka socda magaalada Laascaanood gaar ahaan dhankaas iyo og qaybta xigta. haddaba dagaalkii saaka bilowday deegaanka markaasi dhabansaar ayaa markaasi ku fiday tuulooyin fara badan gaar ahaan tuulada Samakaab daafaheeda ayuuna ka socdaa ilaa hadda. dadka deegaanku ayaa u muuqda inay markaasi doonayaan inay qabsadaan masaafo dhan 44 kiiloomitir oo magaalada Laascaanood u jirta. waxayna rabaan inay xoog waxay hayaanba iyo xeeradba ay isugu geeyaan dhinaca shishe oo markaasi deegaanka tuulo Samakaab xigta. wararku waxay sheegayaan in ay ciidamada deegaanku ay hub fara badan ka qabsadeen ciidamada maamulka Somaliland. haddaba waxaan idiin haynaa muuqaalo cajaa'ib ah oo dadka deegaanku ay guulo ku sheeganayaan. muuqaaladana marka hore aan idin kala baxo. nimankii buulka lagu wadsantay waa la jabiyey salaamti sugi reer cafiga suuga waa la haya waan qabsanay saaka ciidamada rijiinka musabbix waxay soo weerareen ciidamada xaqgudurinka ee SSC haddana aan kula hadlay waxaan ku suganahay furaha hore ee dagaalka nimanka jab weyn baa saaka gaaray meel walba oo iga horreeyay oo jeeda meedkoodii baa waran haddana waa sii wadnaa insha Allah tacaala dhinac walba ay joogaan timaaniirtu dhinac walba waa ka dagaalamay waa la isla soo dhaafay saaka tuulo Samakaab baa la isku hayaa xaggan galbeedkana aad bay ugu jabeen dhinaca jihadana waa jihadii bari maraaga laftirkeeda inuu dagaal xoogan baa ka socda oo aad iyo aad nimankaas ugu gaar. waxaan leeyahay dhammaan jamaahirta meel kasta ku sugan yihiin guul baa gaadhay maan leeyahay insha Allah tacaala gacantaana ku soo dhigdhigi doonaa gacanta dagaalkuna waa kale waa u jeedaa waa kuwa iyaga si baaciran si fogeerin gooja cadda hadda wax ka yar 25 talaabo ama 20 talaabo meelahaas baan u jirnaa insha Allah tacaala. waxaan leeyahay dhammaan jamaahirta meel kasta joogtaan guul iyo gobonimo waa kullis ka hade ku dhiiti dowladda waa marsa waxaan leenahay rajimka musabbix in barina oo galina oo inta xishoonay waxaan ku waqtiga wala isku dhaaf kan waa kii lagu kala hadhi lahaa burcana la isku waraysan doonaa insha Allah tacaala. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad baa mahadsantahay. mawlida uu saaka subaxnimadii hore aroortii nimankaas iyagoo iska dadku ay difaac la iskaga jiro laakiin aan la dhaadan bay xogaa weerar gaadma soo qaadeen adigu xogaa waa ku soo xoogeysteen meesha waa la isku halay dagaal aad iyo aad u qaraar ayaa ka dhacay xayelo badan ayaa gaadhay gurmadkii dambe na soo gaadhayna waa kiciyay goobihii ay saaka soo gaadheen hadda dib baa looga kiciyay walina dagaalkii waa socdaa saacada hadda aan joogno oo ay duhuradii tahay waa socdaa dagaalkii si saaka ayuu u socdaa. nimankaasi meeshii hadda waa la sii wadaa waa fogaadeen hadda waa la fogeeyay qasaaraha dhinacayaga hadda saa uma badna wax saa weyn maaha iyaga laakiin dad badan oo maartay meediya dhaawac waa la xaqiijinaya hadda oo la gaarsiiyay inta loo galay meelo ay dhuba aan iska filayn baan kaga soo daadanay professor weyn baan u sii galnay. marka nimankaasi saaka awood ayay isticmaaleen baleenkooduna wuxuu ahaa inay kiciyaan ragga meesha jooga oo deesay ku ay macnaha wararkan oo baan ka haynay inay fogeeyaan oo ay meelo fog wax gaarsiiyaan laakiin tii ma aysan dhicin. ilaahay idinkii waa dad xaq darro ku soconaya xaqana guuleysanaya mar walba. nimankaasi waa fogaadeen haddana dabada lagaga jiraa gaadid aad u tiro badan iyo afantari aan la koobi karnay ayaa soo gaadhay intayada hore. hadda xaaladoodu waxay maraysaa waxaan filayaa hadda waa la daba eriyanaya hadda waxna waa gaadidna waa laga qabtay. nimankii hadda aad iyo aad baa xaaladoodu ay u foorartaa wada xaq darro ku soconaya insha Allah waa jabayaan inahaas aynu marnaynaa insha Allah wixii dambe wala meesha ka soo kordhana iyo qasaara insha Allah waa kula soo wadaagi doona walaal. daawadayaal dagaalkan culus ee ka socda magaalada Laascaanood ayaa markaasi kooxda kale waxay rabtaa inay dhulowga muhiimka ay ka qabsato. ciidamada deegaanku waxay markaasi isticmaalayaan xeelad military oo la xiriirda inay isku kala balaariyeen afarta jiho si la xiriirda in ay markaasi hareerayaan ciidamada Somaliland oo ku go'doosan markaasi
buurta goojcadda lagu magacaabo hoosteeda kuwaas oo doonaya in ay mar qura jiibta ee jaanta isla helaan halkaana laga saaro. daawadayaal warar kale oo muhiima oo intaan codka duubaya kadib warka aan helay ayaa waxay sheegayaan in dadka deegaanku ay markaasi la wareegeen furmo muhiima oo ah hadba kooxda qabsata goobtaasi. balse wixii war ah dib ayaan idinka soo sheegi doonaa ee fadlan la socda warbaahinta Hogol News oo soo dayn doonta wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Laascaanood ka socda.